waddanka waxaa hore u badbaadiyey 13 asway oo dhalinyarada ahayd oo qabiil sheeganaynin ayaa badbaadiyeen maanta waxaan rabnaa waddankeena dhalinyaradu inta u soo baxdo oo iskaashato oo maankooda midaydo inay waddanka badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan waxa la wixii dandarra ay ka badbaadiyaan ururkani waa ururkii dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa inayna taageeraan si dhalinyaradu u badbaado magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayaa xalay lagu qabtay munaasabad heerkeedu sareyso lagu soo dhaweynayay musharax madaxweyne Dr. Sham Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale xisbigiisa Tawfiiq oo ay dhawaan gaareen magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ay ugu horeeyaan culimadiinka dhalinyarada aqoon-yahanada iyo sidoo kale waxa garadka iyadoo sidoo kale xusud mudanta in ugu horeyntii munaasabadaasi kalmado kooban ay ka jeediyeen marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo qayb ka ahaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed Cabdi Diine urur siyaasadeed baa tahay miiska wax ka fadhida xisaabta wax ka leedahay waxa diidaysa oo caawa naga ballan qaadaysa Ilaahay hortiisa iyo ummadda Soomaaliyeed ee joogta horteeda naga ballan qaadaysa inaad aqbalayn wax ka sokeeya qof iyo cod wax ka sokeeyo inaad aqbaleen baa Ilaahay hortiisa naga ballan qaadaysa sidaan anagu hadda ka aaminsanahay nin zaciima oo waraad ah oo shariicada islaamka iyo diinta islaamka ku xil dheer ayaa tahay haddana waxaa hankaagii iyo qaabkaagii uu gaaray insha Allahu inaad Soomaaliya hogaamiso salaan kadib waxaan rabaa xisbiga Tawfiiq uu hogaaminayo